بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا سولا ترافل فلوج iminka ayaa waxaan ka soo degay diyaaradda Turkish Airlines oo ka timid caasimadda waddanka Ingiriiska magaalada London airportka Heathrow waxayna u soo socotay magaaladan 3 saac iyo bar ayay u socotay madaarkan cusub ee la furay sanadkii 2019 aad ayuu weyn yahay sidaa awgeed asxaabta ku xiran Solar Travel Vlog ayaan rabay in aan la qaybsado qaabka uu airportkan u shaqeeyo oo noocyo kala duwan ah tusaale ahaan dadka gelaya magaalada Istanbul halkan ayay soo aadayaan oo waxaad arkaysaa passport control airportkan iska ilaali aad ayuu weyn yahay meelaha qaarkood waxaa loo socdaa ilaa iyo 40 daqiiqo ayaa loo socdaa marka mar walba haddii aad gelaysid waddanka Turkey khaasatan caasimadda ganacsiga Istanbul waxaad maraysaa dhanka iyo passport control iyo luggage-ka waxaa kaloo jira transfer oo dhankana iyo dhanka kale oo dadku ay aadaan meelaha kala duwan marka airportka aad ayuu u weyn yahay diyaaraddan yar ayaanu ku nimid iminka marka diyaaraddu markay soo degto ilaa geedkan ay kaga soo xiranto wuxuu qaadanayaa waqti ilaa iyo 30 daqiiqo airportka checking ilaa laga gaaro meesha laga qaato boorsooyinka isla markaana aad ka helaysid visa aad ku gashid waddanka wuxuu qaataa 20 ilaa iyo 30 daqiiqo qof waayeel ah qof aan socon karin oo curyaan ah hadduu kula socdo diyaaradda waxaa la sii dalbadaa xilliga tikidka aad jaranaysid disability assistant waxa la yidhaahdo ama caawinta curyaanka marka meeshan oo kale ayaa lagu sugaa aad u jeedaan waayo qof ku socon kara haba yaraatee ma jirto qofka caadiga ah ayaa dhib ay ku tahay inuu socdo lagama yaabo qof curyaana inuu maaragtay uu socon karo ilaa iyo 20 daqiiqo ilaa iyo nus saac marka saad ku aragtaan gaarigan oo kale ayaa lagu dalbayaa xilliga tikidka aad jaranaysid ayaa loo sheegaa shirkadda aad ka jaranaysid tikidka aad leedahay waxaan doonayaa in la ii sameeyo qofkana dawaayeelka gaariga lagu wado horay uu sii dalbaday kan ayaa lagu geynayaa qof ayaa ku u diyaarsan Turkish Airways waa service free ah oo lacag aan ku bixin marka transferka tusaale ahaan waxaad ka soo degtay magaalada Istanbul waxaad u socotaa Ankara ama Izmir waxaad u socotaa magaalooyinka kale waddanka Turkiga ama waddan kale ayaad u socotaa dhanka waxa la aadaa transferka ayaa la aadaa taasoo ah in aad ku tahay transit transfer kalena wuu jiraa transferka hasuu qaldi markaa transit markaa tahay transferkan wuxuu noqonayaa meel xafiis yar ay ku leeyihiin oo haddii tikidka uu ka qaldan yahay ama waqti badan airportka aad joogaysid Turkish Airways hotel bay ku geynaysaa cunta lagu siinayaa xilligaas oo si bilaash lagu siinayo marka taasna waa inaad ogaataa transfer desk haddii aad tagtid waxaa lagu siinayaa ticket yar oo aad ku baxdid banaanka aad ku aadid isla markaana waxa ku dhex yaala airport hotel ayaa ku dhex yaala hotelka airportka dhexdiisa ayaa ku yaala oo dadka rakaabka ah marka airportka runtii waa dhowr jeer ayaan ka soo degay waa airport aad iyo aad u weyn oo aad looga shaqeeyey isla markaa ilaa hadda dhismo aad u fara badan ayaa ku socda terminalkan wuxuu 4 jeer ka weyn yahay sida la ii sheegay garoonka caalamiga ah Heathrow isla markaana uu ka yahay modern uu ka yahay marka meesha diyaaradda laga soo baxo ilaa iyo meesha ugu dambaysa aad ayuu u fogay aad u jeedaan aad ayuu kala fogay marka qofkii mardhoof ah ama aan u barinin airportada caalamiga adduunka weyn uu ku lumaya halkan marka af Ingiriis haddii aad taqaanid meel walba Ingiriisiga ku qoran inkastoo dadka Turkida aan ku hadlin luqadda Ingiriiska sidaa awgeed haddii jahwareer uu kugu dhaco airportkan aad timaado waxaa la sameeyaa information desk ayaa la raadiyaa waxay ku hadlaan luqado kala duwan carabi Ingiriis ayay ku hadlaan sidaa awgeed ayay kaaga caawinayaan iminka salaankii ama jaranjaradii aanu ka degaynaa oo hoos waxaan u sii soconnaa dhanka iyo meesha laga galo magaalada taasoo weli aanu gaarin dhankii iyo immigration controlkii aanu gaarin si
visa loo qaato dadkan baasaboorada North America iyo Europe wato xaalkoodu aad ayuu isaga fudud yahay marka meelo waxaa jirta aan la ogolayn in laga duubo sida awgeed 10 daqiiqo hore qaybtan ayaanu isla eegaynaa vlog aan ka samaynayo travelka marka viisaha la dalbadaa dadkaasna transit iyo transfer ay ku jiraan transitis halkan oo ujeedaa inta waxaa ku yaala transfer desk iyo viisaha waa dhanka midig passport controlna waa dhankan midig marka qofkii doonaya dhankan ayuu aaday midig ayuu aadaya dhankaasna ujeedaa intanoo diyaaradood adduunka ayaa ka kala baxda baggage claimkana waa dhankan iminka dhankan ayaan aaday dadka kale waxay ku jiraan transit iyo waxay u yihiin North America iyo Europe sida awgeed ayaa saf ay halkan ka galayaan safkaas ayay sii raacayaan safka ayaa wuxuu geenayaa meelaha kale marka Turkish Airline information dadka riyaamiinta ah meeshan ayaa la fadhiisiyaa halkan ayaa gaari looga qaadaa marka viisaha qofkii doonaya astaamaha hoteelada wax walba halkan ayay ku yaalaan dadkan waa international transfer ayaa la yidhahdaa haddaad u socotid Maraykan Canada Carabaha meel walba Soomaali halkan ayaad maraysaa haddii aad ka timaado haddii kalena dhankan ayaad ka baxaysaa marka aad ujeedaa halkan ayaa la yimaada diyaaradaad halkan ayaa laga eegtaa tii cancel laga dhigay tii socota tii duulaysa dhammaan halkan ayaa lagu soo qoray ilaa iyo dhowr saacadood ayaa halkan lagu qorayaa mararka qaarkood 10 saacadood 12 saacadood ayay ku qoran tahay marka dhankan haddii aan eegno waa viisaha meesha laga dalbado waxay ku xiran tahay waddankaaga waxaad soo qaadanaysaa viisa yar ayaad soo qaadanaysaa waa sticker ama stamp ayaa lagu dhejinayaa dhankan mar walba falaaraha ayaa la eega looma baahan xataa luqad inaad taqaanid iyo in kale falaaraha haddii aad eegtid waad fahmi kartaa meeshaad u socotid iyo meeshaad ka imaanaysid marka dhankanna waad ujeedaa safka ayaa lagu jira international transfer airportka designkiisa iyo siduu yahay runtii waa mid caalami ah oo weli aanu ku arkin airportada caalamiga ah ee aan ka dhoofo sida isla markaa diyaaradda waxaad arkaysaa halkan Turkish Airways waxaad arkaysaa u soo dhow meesha dadku ay fadhiistaan aad ugu soo dhow marka international transfer markii aad dhaafid dhanka bidix waxaad ka helaysaa passport control visa iyo waxaad helaysaa isla markaa iyo baggage claim ayaad helaysaa internationalka waa bidixda markaad soo gashid dhankaas dee aad usii dhaaftidna weli passport control kugu socdaa marka hayse odhan halkan keliya noqonaya marka waxaa la diidayaa keliya haddii camera aad duubaysid anigoo kale in aad la ag tagtid askariga laakiin hadda ujeeda viisaha toos baggage claimkan lefta qofkii viisa wata leftigan ama bidixdan ayuu aadayaa oo passport controlka aad ujeedaa ishaan ku xadayaa passport control inta badan lama ogola in la sawiro dhankaas ayuu aadaya haddii aad wadatid haddii kale viisa waa inaad raadsataa waxaa la bixiyaa 20 60 100 waxay ku xiran tahay nationalityga tahay ama waddanka aad ka timid ayay ku xiran tahay marka waa ujeedaa weli viisaha wuxuu ku leeyahay waa halkan passport controlka dhankan bidix ayuu noqonayaa aad ayuu u fudud yahay marar badan ayaan ka hadlay arrimahan waddankan loogama dhoofi karo baasaboor bug ah ama qof kale uu leeyahay ama la soo fujiyey 5 control iska daayay hal control 5 control oo kala duwan ayaa la maraa qof walba faraha ayaa meesha saar la yiraahdaa marka ha isku dayin in lagugu qabto oo lagugu dhibaatay haday ku qabtaanna dadkan Turkida ah xabsi waa lagugu iloobayaa marka waad ujeedaa inta oo dhan waa dhanka iyo passport control bidixda marka viisaha weli way horeysaa viisaad soo qaadanaysaa halkan ayaad u soo laabanaysaa viisa waa sticker waxay qaadanaysaa 1 minute ay ku qaadanaysaa safka inaad u gashid 1 minute ay qaadanaysaa marka viisa markaad soo qaadatid halkan ayaad ku soo laabanaysaa safka ayaad gelaysaa markaad gashid hore ayaa lagaa siinayaa dadka safka ay ku jiraan ujeeda viisa meeshay ku qoran tahay safka ayay ku jiraan horaad ka soo qaadanaysaa dhankan iyo passport controlka ayaad u soo laabanaysaa waxaa fadhiya ilaa iyo 20 qofood oo ka shaqeeya ayaa fadhiya si ay u xaliyaan arrimaha viisaha iminka dhankan haddii aad eegtaan waa informationka telefoonada free ayay waxay kugu siinayaan chipka ama simka ayay free kugu siinayaan dhankaasna waa passport controlka dhankaasa marka halkan passport control kale ku yaala aad u weyn isla markaana visa ayaa laga soo qaadan rabaa marka qaybtan vlogga ah ee Istanbul International Airport halkan ayaan ku gabagabeynayaa viisaha waa meesha ku qoran tahay visa ay ku qoran tahay ayaa laga soo qaadanaya saf ayaad galaysaa 4 ilaa 5 daqiiqo kadibna waad ka gudbaysaa waad ka baxaysaa marka intaan hawada kulmi doono mar kale waxaan leeyahay billahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh